بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وسلام على عباده الذين اصطفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan jeclahay maanta inaan ka hadlo salaada iyo iimaanka. mu'min waxa la yiraahdo ayaan marka hore soo qadimayaa ka bacdina salaadan ka hadli doonaa hadii Ilaahay yiraahdo. ma garanaysaa horaan u ballan qaaday casharka inaan soo gudbinayo hadii Ilaahay yiraahdo. ma fahmi kartaa inaad mu'min tahay inaad ahayn. waxaan jeclahay maanta inaan kuu fududeeyo باذن الله الكريم. haddii aad taqaano waa heer sare, haddii aadan aqoonna bal dhigahada waxay raamaahay. mu'min ilaahay baa na baray subxaanahu wa tacaala noo tilmaamay. dad fara badan waxay u malayaan mu'miniin inay yihiin ama way yihiin waysanba ogeynba. marka mar walba way fiican tahay waxaad ogtahay inaad samaynayso. mu'min ilaahay baa na baray wuxuuna weeyaan meel fara badan ayaa qur-aanka lagu soo qaatay. waxaan jeclaa suura anfaal bilowgeeda ayada ku jirana soo qaato oo si saxiixa u tilmaamaya mu'min waxa la yiraahdo yaa la yiraahdo mu'min. الله سبحانه وجل وعلا حوليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. أي الله إليه سبحانه وجل وعلا مؤمن وحال يرهده كوة مركي إلهي حسكي سمقلان إلهي اللي حصه قلبي قد جلعه قلبي قد واجلعه يا حضلي يا وحشاقي رب العزة يا حضلي قلبي يسور على آيات كيسيا اللي قدول أخري آيات قرآن اللي قدول أخري وحلل إلهي وحان وكان ريبي إلهي وحان وحدوني أنا تسميسو إيمان أكرني إيمان وياش والراعي آيات إفريس ويالي أصغر مرمن محيتري maxaa laga wadaa maxay saas u noqotay asagoo la imaan ayuu samcan wadaacan waan aqbalay rabbiga sida aan reeso maaha waan ka haray balaayad u socotaa dulmiyaad u socotaa fasaada u socotaa dhiig binaadina daaysa u socotaa inaad xamatad u socotaa inaad isku dirtaa u socotaa inaad maxayatu isha ictidaa sameeyda u socotaa zinad u socotaa balaayo dhamad u socotaa wax ilaahay ka mamnuucayo dhamad u socotaa waa lagu sheegay waxa ilaahay kuma ogola subxaanahu wa ta'ala waanad ka istaagtaa oo tiraahdaa yaa amray weligii amray boqorkii boqorada amray waa ka hartaa iimaan ku kordhaa iimaankaas weeyaan وعلى ربهم يتوكلون ربigooda tala saarta ilaahu waa ka hara waxaan amarkaagaan ugu hara rabbigayo adaan ku tala saartay kuwa salaada ooga wixii ilaahay ku irsaaqana nafaqeeya oo dadka kale wax siiya mu'minka xaqqa kaas waa yiri Allah subhanahu wa ta'ala. meelo kale waa lagu fasiray suura mu'minuun iyo meelo kale gedisan iyo suurada la yiraahdo suurada la yiraahdo ii sheegeen suurada maxay suuradii kale ii sheeg واحد suurada magaceedu kuma jirto maskaxdeedu kuma jirto laakiin dhowr meelood kale taa lagu xusay suura xajna waa lagu xusay sidaas oo kaleeto walaalka sharafta lahu marka iimaanku noocaas weeyaan ama mu'minku noocaas weeyaan mu'minka xaqiiqada intaas calaamadahaas uu leeyahay. marka waxaad arkaysaa in tala saarashada Allah iyo maxay ahaato salaada iyo zakada lagu calaqay iimaanka in lagu calaqiyad aragtaa oo calaamatul mu'min ay tahay. saddexda shardi waxay la socdaan iimaankii la socdaan. idan salaadu waa rukni culus iyo tala saarashada Allah iyo nafaqadu saddexduba saddex kala daran weeyaan. maanta laakiin waxaan soo qaadanaa salaada waxaan u maleynaa mu'minkii waad fahantay waxaad garan kartaa calaamadahaas markii laga helo inaad mu'min tahay ayaad xaqiiqsanaysaa boqolkiiba boqol. laakiin haddii aad wax kale u rumaysan tahay adaa og wax u rumaysan tahay salaada soo qaadanaya maanta haddii Ilaahay yiraahdo salaadu waa sidee salaada maxaad ka aaminsan tahay. waxaan ogahay dad fara badan oo qurba jooga Soomaaliya in salaada dhibaato fara badan ay ka haysato warshada ka shaqeeya gaala ku dhex jira cadawga maxay haato ii sheegeen iskoola dhigta jaamacada dhigta mashquul ah aad iyo aad u mashquul ah salaadii ay ku dhiban yihiin runtii qaarkood mashiinadii oo daaran ay ka tagaan qaarkood ay la dagaalaan oo shaqadii la dagaalaan oo balaayo ay sameeyaan dhibaatooyin fara badan ayaa jira. walaalka sharafta lahu aan ku sakhiro maanta biidni Ilaahi الكريم maaha waxaan fadwoonayo anugu waxaan isleeyahay wax fara badan oo laga qariyay oo nasiixada diinta islaamka oo laga qariyay ayaan jeclaa maanta inaan ku bidhaamiyo. waxay ku sugan tahay sunnada rasuulullaahi maxamed sallallahu alayhi wasallam
laga bilaabo maalinkii aad salaad bilowday ilaa ma qiyaami saaca wax ka sokaya iska dhaaf qiyaami saaca inta noloshaadu ay gaarto duhur iyo casr isku meelaad ku tukan kartaa 4 ragco iyo 4 ragcaad tukan kartaa maqrib iyo cishana hal meelaad ku tukan kartaa hal goob 3 iyo 4 aad tukanaysaa haddaad safrayso oo safar aadayso ama aad baqaysaba oo dad aad ka baqayso waa qasri kartaa laba tukan kartaa oo soo gaabi kartaa maqribka asaga sidiisa loo tukanayaa laakiin waa isku daraysaa oo soo gaabinaysaa salaada subaxna gaara loo tukanayaa haddii dagaal iyo wax noocaas uu jiro axkaam kale leedahay way ka gaabanta sidaas ayaan jeclahay inaad fahanto waana arrin xaqiiqa sababna ma lahan innaba allah ka dhigay sabab ma lahan salaada subaxna ida gaara loo tukanayaa innaba allah ka dhigay sabab ma lahan haddaa adigu go'aansato inaad sidaas samaydo inta noloshaadu gaartaad samay kartaa haddaa rabtana kale keliya u tukan kartaa haddaa rabtana laba u tukan kartaa waa arrin ku sugan saxiix muslim xadiis ku sugan saxiix bukhaari kutubta sunnada rasuulullaahi maxamed sala allahu calayhi wasalam haddii wadaad uu yidhahdo shiica iyo wax noocaas aad ka maqashaan aniga iisoo dira anuu shiicina maahi shaqana ku balihi markaan doonana laba salaadood u tukadaa markaan doonana kale keliyaan u tukadaa xoraan u ahay ilaahay waasac uuna siiyey ilaahay diinta ciriiri noogama dhigin nabiguna sala allahu calayhi wasalam uu ka digay in diinta la adkeeyo dad fara badan ayaa diintii lagu adkeeyey macnaha sabab la'aan qoraxdaa la firfiirinaya xagga salaadda iimaankay ku jirtaa iimaankuna qorax ma yaqaano ilaahay waqti ma laha subxaanahu watacaala salaaddu waxay ku waqtiyeysan tahay fajarka ilaa cishaa inta u dhexeeya labadaas salaadood ayaana qur-aanku xusay ogaada salaat alcishaa iyo salaat fajri inta u dhaxaysa ayaa la tukanayaa macnaha labadooda waxa u dhaxeeya oo maqribka iyo xalli cishaha iyo salaad subax salaatuleil keliyaha ku jirta laakiin dhinaca kale ku jiraan salaaduhu saasaad ula soconaysaa cid alle ciddii kugula doodana waxaan u tilmaamayaa saxiix muslim iyo saxiix bukhaari hadday og yihiinna way og yihiin oo dadku wax badan ay ka qarayeen haddaysan ogeynna waxaan leeyahay halkaas ka fiirsha waxaad ku arkaysaan salaada muqiimka oo la isku darayo salaatu jamcu salaad ayaad ku arkaysaan ay ku taallaa si waadaxa waxaa ku saara salaada subax waxaan jeclahay inaan xuso halkan rasuulullaahi maxamed sala allahu calayhi wasalam salaad subaxa ka tagtay sidoo kaleeto salaad subax ayuu tukaday iyadoo soo gelinba nabigu sala allahu calayhi wasalam saxiix bukhaari ku taallaa idan walaalka sharafta lahow wax badan oo lagu adkeeyo haddii lacalla salaadu kaa tagto kaleeto waa soo qallay kartaa sabab ay jirto sabab ay kalifta maad seexatay amaad hilmaantay wax uun ay jiraan dhibaato uun ay jirto kuu kaliftay hays ciriiriyin mishiin daaran ha ka tegin dadka nafta ha u keenin aduu hays dhibaataynin oo ku mashquulin suuragal maahan inaad 2 salaadood casr iyo duhur maad ku tukata aad weydo macquul maahan waa dhif iyo naadir waay maqrib iyo cishi maad ku tukata inaad weydo nadiif ahoo ku banaano cidna aysan ku fiirfiirinayno cidna kula yaabayno maxay tahay dad dhibaataynayno shaqadii aad ka tagayno ciriir fara badan aad dareemaynin meel macnaha mustaxiil waa helaysaa shakalo waa walaalka sharafta lahow sidaas ayaan jeclayna kugu biiriyo waana arrin sugan shiicana shaqo kuma lahan shiicaas tiri iyo wax noocaas ninka kan uu shiica maahi shiica ma hadda maqnaya shiica maahi anigu shaqo kuma lihi waxa weeyaan wax sunnada nabiga ku sugan weeyaa sallallahu calayhi wasallam kutubta aan idin sheegay ku sugan yihiin cidii doonaysaa waa baari kartaa salaada jamcu salaada ka baari kartaan salaadaha la isku dari karo way ku taallaa meel bay ku taallaa intaas ayaa jeclaan ku soo gudbiyo wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh